waa qaybtii afraad ee sheekadii taxana libaaxyada walaalihii la caydhiyey iminka libaaxii duqa ahaa ee labada libaax ka tegeen ee labadiisii libaax ama labadiisiinan eriyey maanta bad ayuu ku jiraa waxaa soo weeraray saddex libaax saddexdan libaax waxay doonayaan inay reer la wareegaan maadaamuu isagu inamadiisii difaaci lahaa iska eriyey nin inamadiisii haysta ayaa soo weeraray hadda gacanta ayaa lagu dhigay waxa loo garaacayaa siday tahay dhig lugtu dhaqaaqaba waa lagu dhaqaajiyaba waa lagu dhuftay saddex libaax oo dhallinyaraa oo inamadiisii uu eriyey oo reerka ka caydhiyey laaleeg ayaa odaygii shukulaya mid baa u soo gurmaday goor dambe ku yarow dhalayoo weynaaday ah oo intii weynaaday laakiinse it's too late wuxuu soo gaadhay iyadoo aabbihii dhintay aabbihii talo waa maray ku sheegtayo marad gaadhi weyn kii yaraa ee ku hadhay sidii aabbihii difaacna isagoo laangadhaa ayuu lugaynaya oo laga adkaaday libaaxu marka laga adkaado ma sii oggolaado nolosheenu sii watee badgaar buu u baxaa cidla ayuu ku dhintaa libaaxu guuldarrada ma jecla guusha ayuu la dhashay hadduu guuldarro dhadhamiyo isaga ayaa naftiisa dila gaar intuu u baxo ayuu cuntada iyo iska daayaa biyaha sidaasuu ku dhintaa iminka ninkani cidlu ku soo dhimanaya mar hadduu aabbihii difaaci kari waayay halkan waxaa jooga saddexdii nin ee guulaystay ee la wareegay boqortooyadii aabbihii xumo libaaxyadii la caydhiyey aabbahood waxay la wareegeen reer dhan waa saddexdaa libaax waxay isku hambalyeynayaan dhulkan ay qabsadeen taratarigan iyo goolahan ay la wareegeen waxay maanta ka talin doonaan gegadan janyaha ayuu fidsaday si boqorkii taa macnaheedu waxa weeye waan guulaystay waxa ay dhammaan dili doonaan dhalihii yaryaraa oo dhan waxa ay la wareegi doonaan goolihii halka kale dhinacan halkan aad daawanaysaa waa labadii ninee odaygu eriyey oo iska damaashaadaya oo goolahoodii iyo carruurahoodii iyo deegaankii cusbaaya ay ka talin jireen haysta kuwani war uma hayaan waxa aabbahoodii soo eriyey ku dhacay kelidood ayaa iska keefaya damaashaad bay ku jiraan kama qasna waa laba libaax oo waaweyn oo boqoraa oo ka taliya dhul masaafo ballaadhan dhanna aan loo soo dhaafi karin waa kuwa meesha ku atooreynaya ee laabta garaacaya kuwani waxay gaadheen heer boqornimo dhammaystiran oo aanay cidna ka baqayn waa laba libaax oo isku tashaday oo walaalaa gooluhuna waa ay buuxaan waxay haystaan reer dhammaystiran waxay isu diyaarinayaan generationkii dambe inay soo kordhiyaan meeshu waa barwaaqo waxalla waxay ka baqaan ma jirto meeshan ciddii soo weerarta meel bay iska saari karaan niman meel iska saaraya ciddii soo doonato wey cid alla ciday ka baqayaanna ma jirto isku tashiga wadajirku waa sidan walaalays jeceli way xoola badiyaan bay tiraa soomaalidu waanay xabaala yareeyaan walaalays necbina way xabaala badiyaan waanay xoola yareeyaan hadda gooluhu marka ay dhalayaan gaar bay u baxaan dhashoodii meel gaaray la tegeen libaaxyadii waxa looga tegey cidlo waa inay iyagu ugaadhsadaan iminka waxa la gaadhay wakhtigii generationka cusub uu dhalan lahaa gool waliba waxay soo dhashay 4 ama 5 libaaxoo yaryar oo ay meel gaara ku soo dhashay marka intan gaadhaan ay soo raaci karaan dhaliheedu ayay soo qaadaa kadibna waxay keentaa halka aabbahood iyo kooxda badankeeda ay joogaan halkaasi oo ay gaadh kaga hayso dhinacna ay ka jaqsiinayso naaska dhinacna ay kaga ilaalinayso wixii cadow ay soo weeraraa nolosha libaaxu waa sidan gooshu iminka waxay u xil saarantay dhalaheeda inay difaacato libaaxii fadhiguu ka kacay markuu arkay dhalihiisii iyo goolihiisii oo muddo ay kala maqnaayeen farxad buu ku soo dhoweynayaa waxa la ysbaray oo la ysu keenay isaga iyo dhali yarraa ee uu dhalay waa kuwa markii koowaad bay aabbahood ag fadhiya dhalaha
waxa ay maanta ku jiraan gacmo sayfa ama gacmo nabadgelya inta aabahood uu dhinac fadhiyo hooyadoodna ay dhinac fadhido waxay ka baqayaan ma jirto way isugu toosantay haddii laakiinse gooshu ay cidlo ku haysan lahayd waxay halis u ahaan lahayd in libaaxii ay soo weeraraan sidii kuwii dhulkaa daawanayseen kadibna libaaxu marka uu guulaysto ee uu ka guulaysto libaax kale shaqada ugu horreeya ee uu qabtaa waa inuu laayo dhammaan dhalaha yaryar ee cusub dhalahan wuxuu aaminsan yahay in ay isaga berri dili doonaan maadaama aanay ahayn dhiiggiisa iyo dheecaankiisa kuwa uu dhalay isaga dili maayaan oo aabbahood inuu bay garanayaan laakiinse kuwaanu dhalin ayuu dilaa libaaxu waa dhaqan uu libaaxu iska leeyahay u gaara waxaana la yidhahdaa waxa weeyaanka u dhaatay isagu istabarku weeyaan waayo inta badan libaaxu ma laha cadow isaga cuna kuwii yarraa qalqaaliga ahaa libaaxii aabbahood boqorkii bay ku ciyaarayaan dibkay ka qaniinayaan waa ka seexan kari laayay isaguna canaan buu dhagaha ku geynayaa iga daaya ciyaarta weli aad ka seexdeen kuwa yarra waa qaar yar u dhaga adag ma dhegaysanayaan kan imunka waa arkii soo socday isaga bedelayay mustaqbalka aabbihii buu dhibayaa xataa markuu istaagay oo uu ka kacay dabada ayuu ka sii qaniinayaa isna iga qabsa buu leeyahay goosha iga qabsayna kaana yar ka fadhiistee annaga qaba carruurta uu leeyahay carruurtu qaar wax maqlaya ma aha hooyaduba way ku ciyaaraan laakiinse hooyadu raalli bay ka tahay inay carruurteeda ku ciyaaraan iminka aarkii waa xanaaqay markuu ka seexan waayay ciyaalkii aarku hadduu xanaaqo waa carruurta u dilaya iminka gooshii aabbihii ayay la dagaalamaysaa sababta ay isku dilayaanna waxa weeye waxay ka baqaysaa intuu xanaaqay inuu carruurta luqunta ka jebiyo ninkan libaax baa la yidhaahdaa aarka sayntale baa la yidhaahdaa ma noqo haddii uu xanaaqo maca kuwu dhalay ayuu luqunta ka jebin doonaa sidaa laajigeed ma rabto maamadani in uu carruurta ka laayo that's why ama taasi waa sababta ay uga celinayso ee u dilayso waxa weeye meeshan goolaa degan libaaxan iyo goolahani dhirtaasay iskaga hoos nastaan way hoos hurdaan libaaxu waa sida bisadda uu hurdo jeceliyey hadda meesha waxa u soo arooray biyaha ka dhowaa meeshan ay libaaxyadu joogaan maroodiyaan kooxdan maroodiyaasha ah markay libaaxa aragto dagaal bay isu diyaarinayaan waayo ma aaminayaan libaaxu mar kasta waa dagaal joog waa nin aan waxbaba ka baydhin ee macalmaroodiga macalgeriga waa xoolihiisa kuu doono ayuu carruurta u loogaa kalsoonida libaaxa halkaasaad ka aragtaa koox maroodiya ku soo socota ka carar maayo waddadana uu bannayn maayo maroodigu sidaynu wadaba kalsoonnahay waxa weeyaan aad iyo aad u xoog weyn dhammaan noolaha berriga ku noolina markuu halkaa ka soo baxo waa ka yaacaan laakiinse libaaxu kaa maaha libaaxu isagaa boqora isagaa meeshan dabbaaba xataa kuwa yararee dhashay libaaxa yaryaree dhashay kama baqayaan maroodiga reeb intii u jiro aayarunba ka warkacayaa waxay u arkaanba xoolahoodii waa ilaahay baa isugu talagalay waa qaybtii afraad baa gabagabo ku jirta adiguna ilaa hadda like iyo share daawadee haddii aad hore noola joogtay waad ku mahadsantay haddii kalena nagu soo biirsi muuqaalada xiisaha badan leenalkan ku soo gudbin inaad qayb uga noqoto lana wadaaga saxaabtaada aad baad u mahadsan tahay